kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka Qalbi Soomaali TV. barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa fanaaniin Soomaaliyeed oo cadaawad weyn ka dhaxayso balse bulshada Soomaaliyeed aysan war ka qabin cadawtinimada dhabta ee fanaaniinta ka dhaxaysa. haddaba intayna mawduuceena u gelin haddii aad ku cusubtay kanaalka Qalbi Soomaali TV fadlan taaba calaamada subscribe-ka kadibna gambaleelka furo ku soo dhawow barnaamijka. ugu horeyn daawadayaal fanaaniinta Soomaaliyeed ee xiriirkoodu aad u xun yahay isla markaana cadaawadu ka dhaxaysa waxaa kamid ah fanaanada loo yaqaan Xaliimo Gobaad iyo fanaanada loo yaqaan Hodan Cabdiraxmaan Dheere. sidaynu wada ogsoonahay daawadayaal Xaliimo Gobaad waxay cadow u tahay fanaanada kale ee loo yaqaan Hodan Cabdiraxmaan Dheere. cadaawadooduna waxa ay ka dhalatay markii si bareera oo waliba cadaan Xaliimo Gobaad ay u aflagaadaysay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere loo yaqaano iyadoo u bixisay magac aad u fool xun kaas oo ahaa Hodan Ilka Boqol. sidaa daraadeedna magacaasi waxa uu dhaliyay in labada fanaan xiriirkooda uu aad u xumaado isla markaana fanaanada loo yaqaan Hodan Cabdiraxmaan Dheere waxa ay dhadhansatay in si toos ah loo soo weeraray isla markaana sharafteeda meel looga dhacay taasoo dhalisay cadaawada u dhaxaysa labadan fanaan. sidoo kalena daawadayaal fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed ee isku cadawga ama cadaawada weyn haatan ka dhaxaysa waxaa kamid ah fanaanka loo yaqaan Nimcaan Hilaac iyo fanaanka kale ee loo yaqaan Cabdi Dhaanto. run ahaantii waa laba fanaan oo Soomaaliyeed laakiin cadawtinimadoodu waxa ay ka bilaabantay kadib markii uu Cabdi Dhaanto tagay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkaas oo uu rabay inuu bandhig faneed ku qabsado laakiin bandhig faneedkaas uma suuro gelin sababtoo ah waa laga kala kiciyay. sidaas ay tahayna Cabdi Dhaanto waxa uu dareemay in cadaadis xoog weyn lagu hayo wuxuuna fanaanka loo yaqaan Cabdi Dhaanto si toos ah u sheegay in fanaaniinta Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah ay fankii iyo caanimadooda u adeegsanayaan cadawtinimo bareedha. laakiin dhinaca kale fanaankan Cabdi Dhaanto bandhig faneedkiisa u suuro gali waayay waxa uu ku eedeeyay fanaanka caanka ee loo yaqaan Nimcaan Hilaac isagoo sheegay in Nimcaan Hilaac uu wax kasta oo ku dhacay isaga uu ka dambeeyo. halkaasna waxaa ka bilaabantay cadaawada u dhaxaysa labadan fanaan. geesta kale daawadayaal fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed ee cadaawada weyn u dhaxaysa waxaa kamid ah fanaanada weyn ee loo yaqaan Farxiyo Kabayare iyo fanaanka caanka ee isagana loo yaqaan Guuleed Simba. waxayna cadawtinimadoodu dhalatay kadib markii Farxiyo Kabayare oo qaylinaysa ay soo duubtay muuqaal fiidiyowa kaasoo ku soo bandhigtay in Guuleed Simba uu baraha bulshada ka caayay waliba muddo 6 bilood uu fanaanada iyada ah caayay isagoo adeegsanaya baraha bulshada iyo guud ahaan internetka. waxayna fanaanada Farxiyo Kabayare loo yaqaan sheegtay oo ku tilmaantay Guuleed Simba inuu yahay silent killer oo macnaheedu yahay dilaaga qarsoon. haddaba daawadayaal fanaaniintan arintoodu way sii daba dheeraatay sidaas ay tahayna cadawtinimadoodu waxay soo ifbaxday kadib markii Farxiyo Kabayare ay sheegtay in Guuleed Simba isagoo adeegsanaya magaceeda uu furtay page Facebook isla markaana uu caayay qabiilo Soomaaliyeed. laakiin daawadayaal Guuleed Simba waa uu ka hadlay arinta wuxuuna sheegay inuu yahay nin weyn oo arintaas oo kale aysan ka soo roobin balse dhinaca kale Farxiyo Kabayare iyadoo si xushmad ku dheehantay u hadlaysa waxay tala siisay fanaanka loo yaqaan Guuleed Simba waxayna sheegtay inay tahay marka hore gabar Soomaaliyeed Guuleedna looga baahan yahay inuu akhlaaq yeesho haddii uu rabo fanaan inta ka sii caansan. daawadayaal dhinaca kalena fanaaniinta kale ee cadawtinimada weyn u dhaxaysa waxaa kamid ah fanaanada caanka iyadana loo yaqaan Khadra Silimo iyo fanaanada kale ee loo yaqaan Hodan Cabdiraxmaan oo arinkooda waa mid aynu ka wada dheregsanay halka cadawtinimadooda ka bilaabatayna waa Mursal Muuse oo xaaskiisii koobaad ay ahayd Khadra Silimo kadibna ka raacay fanaanada loo yaqaan Hodan Cabdiraxmaan halkaas oo uu ka qarxay dagaal weyn dagaalkaas oo loo maleynayo dagaalkii saddexaad ee dunida.